laba qof oo fanaan inaan Soomaali oo dhan aanu ceyrinama halkan ka yimid imika waa Soomaali si fiican bay soo dhaweeyeen si fiican bay hayeen laakiin cidda ka cabanay waa fanaaniinta saqobadeeda iyo hadalkayga ka aragteen markaas xaqaas waa Soomaalinimada aad iyo aad baan kana salaamay insha Allah laba qof oo fanaaniin ah inaan Soomaali oo dhan u ceebaynaa ceeb ayay nagu tahay hadalladaasi iyo kuwa kale waxa laga diiwaan galiyay soo dhaweyntii loo sameeyay fanaanka Xabad Muuse taasi oo loogu sameeyay soo dhaweyn aynaba caadi ahayn magaalada Diridhaba halkaasi uu ku qabanayo showgii ugu weynaa ee abad fanaan heer Djibouti ah uu ku qabto magaalada Diridhaba weyn ayaa fagaarayaasha magaalada la isugu soo banaan baxay si loo soo dhaweeyo fanaankaasi iyadoo dadka reer Djibouti hore ay u sheegeen in ay si weyn bandhig ugu qaban doonaan fanaankooda Xabad Muuse oo dhawaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho kala kulmay bahdil iyo ceeb ay u geysteen qaar ka mid ah fanaaniinta reer Muqdisho gaar ahaan labada fanaan ee Dayaxdal Nuurshe iyo Ismaaciil Arka Xabad Muuse oo bulshada la hadlayay ayaa waxa uu ku jawaab celiyay laba qof oo fanaaniin ah in aan Soomaalida oo dhan u ceebaynaa ceeb ayay nagu tahay waan idin jeclahay sida aad ii soo dhaweyseen waa idinkaga mahad celinayaa waa dhiig biyo ma rutii weeyaan waa anna waa nin muujinay waa nin ogahay thank you fanaanka Xabad Muuse ayaa bandhig fanaadiyo waxa uu ku qabanayaa magaalada Jigjiga iyo dalka Djibouti oo iyadana uu uga sii gudbi doono balse dadyow kala duwan ayaa waxay ka soo baxeen dalka Djibouti kuwaasi oo safar u soo ah magaalada Jigjiga si ay uga qayb galaan bandhig faneedka uu ku qabanayo magaalada Diridhaba waxa socota qabanqaabadii ugu dambeysay xilligan ee ku aadan in bandhigaasi uu ka dhaco magaalada Diridhaba fanaaniin dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaana si weyn u soo dhaweeyay fanaanka Xabad Muuse si weyn ayay bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan dadka reer Djibouti uga caroodeen wixii ku dhacay fanaanka Xabad Muuse gaar ahaan in aan showgiisii uu ku qabsaday magaalada Muqdisho aysan ka soo qayb galin bahda fanka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho magaalada Djibouti ee dalka Djibouti ayaa iyadana waxa uu ku qaban doonaa bandhig aad u weyn iyadoo 5 bisha soo socota oo bandhigaasi uu ka dhici doono barxadda weyn ee dalkaasi